haddii aad si wanaagsan u fiirisid khariirada Morocco waxaad ka arkaysaa qayb dhul ah oo ku yaala qaaradda Afrika balse dhabtii ah qayb ka mid ah Yurub. Xadka qaybtan dhulka waa mid aad iyo aad loo adkeeyay. qaybtan yar ee dhulka ah waxaa la yiraahdaa Melilla waxayna ka mid tahay labada qaybood oo dhul ah oo Isbaanishku ka qabsadeen Morocco taasoo ka dhigaysa xadka dhul ee kaliya Yurubta kala wadaagto qaaradda Afrika. Spain waxay qabsatay Melilla dhammaadkii 1400 iyadoo qayb ka ahayd dhul ballaarsigii xilligaas socday. soo galista qaybtani qaxootiga aad bay ugu adag tahay qaar baa si halis ah u dhaawacmo ciidanka labada dhinac ee xadka hadday noqoto Spain ama Morocco uma naxan markii ay qaxootiga isku soo dayaan inay halkaasi soo galaan. maanta qiyaastii Melilla waxaa ku nool 86,000 oo dad ah isla markaana markaad halkaasi tagto waxaad weli joogtaa dhulweynaha Spain. magaalada waxaa loo nashqadeeyay qaab dhismeedka Isbaanishku. dadka deegaanka waxay ku hadlaan luqadda Isbaanishka waxayna isticmaalaan lacagta Yuroga. balse waxa cajiibka ah ayaa ah in magaalada xuduudeeda oo 7 mayl ah ka dhisan siligyo aad loo adkeeyay isla markaana ka kooban 3 siligyo la dhisay oo kala duwan. midka koowaad waa 20 feet oo xindaab bir ah iyo midka labaad oo yahay xindaab bir ah oo qaybta sare laga qaloociyay taasoo ka dhigaysa mid adag in la soo fuulo isla markaana hoostiisa la dhigay siligyo adag iyo midka saddexaad oo ah mid aad u dheer isla markaana leh qayb fiid sareysa. intaasi kuma eke kadib waxaa jira dhanka Morocco 6.5 feet oo hoos dhulka ah loo qoday waxaana ku sii xiga 2 shabaq oo silig adagi kor ka saaran yahay sida oo ay tahay qayb walba oo xadka waxaa ku dhigan video camera. qaxootiga raba inay soo galaan Melilla intooda badan waxay ku sugan yihiin keemo ku yaala dusha sare ee buuraha gobolka Nador ee dhaca Morocco kaasoo xad la leh magaalada Melilla. halkani waa kaamka qaxootiga ay gacmahooda ku sameysteen si ay ugu sii noolaadaan inta ay hadafkooda gelista Melilla ka gaarayaan. meeshani waa halka ay isku urursadaan si ay ugu diyaar garoobaan boodida siligyada xadka ku yaala walow intay sugayaan ay dhacdo in ciidamada Morocco ay halkaasi ku soo weeraraan isla markaana burburiyaan dhammaan waxyaalihii kumeelgaarka ahaa ay u sameysteen sida tendooyinka ay ku hoyan jireen habeenkii. bishiiba mar ciidanka Moroccaanka ah meelahaas waxay ku soo weeraraan qaxootiga waxayna kuwooda la qabto gudbiyaan deegaamo kale oo Morocco ka tirsan deegaamadaas oo aad ugu fog halka laga soo qabtay iyagoo ka waardiyeynaya inay isku imaadaan ama isku urursadaan si ayna xad u soo aadin. inta badani dadka qaxootiga halkaasi jooga waxay ka soo jeedaan sab-saxaraha ama dhulka saxaraha ka hooseeya qaaradda weynaha Afrika. managa inta mawduuceeni maanta fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalkani subscribe gare si aad ula socotid warbixinada kale